بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. walaalaha Soomaaliyeed meel joogtaan ba Ilaahay subhanahu wa ta'ala idinku amayeelo cidii dhibka Allah ka qaado cidii dan la Allah uu fiyo inta baahan Allah deeqooyinta bugta Allah bogsiyo intii dhimatay Allah u naxariisto waalidiinteena Allah u naxariisto annagana Allah nooga daba naxariisto dalka diinta dadka iyo dawladnimadaba Ilaahay subhanahu wa ta'ala haynoo badbaadiyo. maanta waxaan ka hadlaynaa laba qodob baydhabo xaaladii ugu dambeysay kelmadan ka oran doonaa dagaalkii bariga dhexena wararkii ugu dambeeyay 24 saac ugu dambeeyay xogihii aan soo ururiyay iyadana kelmadan ka oran doonaa. baydhabo waa lagu kala sadqaaday, madaxweynihii waa la tarxiilay iyo gudoomiyihii baarlamaanka qoladii cusbeed baa meesha qabsatay. already bililqa waa u jeeday, laakiin waxaan ku faraxsanahay ilaahay mahadiisna ah dhalinyaradii la soo maqiiqay oo iyagu iscelin waayay inaysan la kulmin xabad baa ilaahay ku mahadsan yahay. dad subay ahaayeen oo sida ii muuqata oo aan gadaal ka fahmay laaluush rag qaatay oo safka ku jiray sida ninka la yiraahdo madgaal ama maxamed geel uu ka mid yahay ninkii CID da haystay. raggaas oo laaluush sii qaatay baa garantiga bixiyay, laakiin inaan la islayn oo dhalinyaradii isku dhammaan alxamdulillah. kastoo le qaar baa technique iyo hub la baxay oo duurka jira oo meelo kale jira oo ay dhici kartaa in al-shabaab ay gacanta u galaan ama kuwan laftigu ama iyagu ay balan noqdaan jiriyo dadka laaya ama ay dhici karto waxaas oo dhan. marka xasan sheekh waa ismaqiiqay indhacdayg sidii uu isu maqiiqay meesha la yiraahdo Ras Kamboni buu isu maqiiqay. waxaan filaynay catastrophic. waxaa la sheegay UNT iyo beesha caalamku inay tuunsanaayeen xafiiskiisa madaxtooyada ilaahay police arrintan ku xalino wada hadal marka uu dagaalka qaaday. yes maamul goboleedyadu inay dawladda hoos tagaan oo la helo haddii tan oo kale la heli karo oo aan dhibaato noocaasi dhacayn oo saa loo kala furfuri karo waa well and good. laakiin wixii ka dhacay Ras Kamboni oo kale meelna laguma dayi karo. waxaan maqlayaa hadda qoorqoor oo loo dhaaranayo, waxaan arkayay fiqi oo qoorqoor u dardaar warinayo le odagaasi tagiye Allah samir idinka siiyo ana waa socdaa ma ujeedaa. marka say noqotaba kulli xasan waxa uu haray 46 cisho waa ogaan doonaa meesha ku dambayso. 45 cisho oo haray 45 maanta ay tahay 31 kelmadda intaasan ka oranaya. dagaalkii Iran iyo Israa'iil iyo Mareykanka isku dhinaca wali sidiisii buu u socdaa. Trump hadalla iska soo horjeeda wuxuu yiri mar Iran oilkeeda inaan qaataan rabay anigu, inkastoo dad badan oo Mareykanka jooga ay arrinta ka soo horjeedaan. waa tuugo iyo boob Venezuela boobay maraakiibtii wadada u galay. waa burcad badeed. waa wuxuu anagu nagu caay jiray oo dhan buu ku sifaysan yahay. wuxuu ka shaqeynayaa dhul balaarsi iyo Greater America wax la yiraahdo sheeko la yiraahdo oo Canada iyo Mexico iyo ay yihiin khatar ay ku jiraan in la boobo oo la qabsado oo dhulkooda dhan la qaato. markay timaado fraud iyo tuugo, Joseph Schwartz waa Yahuud khaa'in oo tuuga 39 milyan buu dhunsaday kaligiis. 1 milyan oo dollar buu wuxuu siiyey Donald Trump. 1 milyan markii saa loo xiray oo la rabay in uu xukumo Trump sii daayay. he pardoned him. marka Trump fraud isaga wuxuu ku soo galay xafiiska isagoo wata 34 felony oo ah crimes guilty la yiri, dambiile lagu helay. dambi iyo waxbaa la boobaa iyo cid baa waxada iyo cid baa tuuga iyo isaga iyo reerkiisu sanad iyo hadda waxay joogaan 3 bilood waxay sameeyeen $4 billion. 4 billion tuug hadda maqashid waa isaga iyo inta ku hareeraysan kulligood waxay urursanayaan lacag. waxa u dheer saqajaanimada kale waa Epstein, kulligood Epstein class way. waxa madaxda u ah oo dhan liiskay ku jiraan raggii jasiiradda tagi jiray way oo caruuraha inay kufsadaan iyo inay cunaan shaqadoodu ahay. marka wuxuu kaloo sheegay inuu ma garanaysaa mar kale Soomaalida caayayo dhaqan xumadaas
dhaqan xumo oo dhan isagay ka bilaabataa isagayna ku dhammaataa odagaasi khabiith weeye qashina waxa uu sheego oo dhan isagaana ku sifaysan marka waxayna tusaysaa America inay lumisay dignity-gii wixii la oran jiray xishoodkii iyo sharaftii iyo waxaas haday wax jiri jireen wixii ba lumis Israa'iil wali waxa ku hoobanaya madaafiicda iyo gantaalada Iran waa dhamaynay waa soo afjarnay saasay ugu socotaa waliba markaa waxaa la beegsanayaa industrial backbone iyo infrastructure meelaha ay ka dhimanayso baa la gelaya nuclearkii laba meelood baa lagaga dhuftay oo waliba toos loogu sheegay in loo jeedo markay ku dhacayso misalka caadi loogu jeedo waxa la yaab leh waxa la jabsaday kaamarooyinkoodii iyo ammaankii oo dhan baa la jabsaday sida ay sheegtay Washington Post markaasa waxa la daawanayaa khasaaraha iyo waxa gaaraya Iran caadi ay ugu jeedaa waxa lagu hagayaa misalada local gudaha laga hagaya gudaha iyo cirka oo satellite raashka kulli saasa meeshii la doono loo duqeynaya xalay waataan idin sheegnay inuu yiri Netanyahu it was a tough day maalin adag bay ahayd waxay sheegteen Haifa mar kale waa 31ga refineries-keedii building iyo taangi labadaba in la duqeeyay olol aad u badan iyo burbur labadaba ayaa ka dhacay Najaf iyadana building complex industrial complex meel warshada ay ku yaalaan oo weyn oo bildimo waaweyn ayaa iyadana la duqeeyay olol ba iyadana cirkaas isku shareeray meesha la yiraahdo Makhtashim agricultural plant meel lagu kaydiyo qalabka iyo chemicalska iyo maxay ay leedahay beeruhu leeyihiin ayaa iyadana la duqeeyay dad ahaan waxay sheegteen habeenkii 31 ahaa 232 qof in laga dhaawacay 24 saac u dambeysay dhowr qof oo dhimashaana way sheegteen oo ciidamada ilaa 3 bay sheegteen wararkan aan ka sheegayno waa intay sheegtaan ma dhintaan intooda badan dhaawac bay leeyihiin waxa qaxay baa la yiri kumanaan kun oo qof ayaa qaxay waad aragteen airportkii Jordan oo saas ay isugu koronkoreysan yihiin Israa'iiliyiintii oo yaacayo adduunka u yaacaya oo raba inay ka qaxaan Hezbollah baa iyaduna waxay dhigtay wax la yaab leh 43 attack bay gantaal bay ku weerartay oo macnaha dhibaato geystay bay la heshay 24 saac oo la soo dhaafay 4 meelood oo baysaska Mareykanka baysaska ciidanka ah bay duqeysay 8 settlement 8 meelood oo xaraan lagu degay oo ay degeen kuwa xooga ku dhista oo barakiciyaasha ah dadkana barakiciya waxay kaloo duqeysay hal meel oo iyaduna xaram military ah intaasay duqeysay Kuwait iyo markaan galo gobolada Carabta ama wadamada Carabta Kuwait ilaa 13 daroon baan qabanay bay leeyihiin laakiin waxa dhaawac gaarsiiyay kuwa kale oo misal ah sida airportka waxa ku dhacay gantaal ba ku dhacay markab ay leeyihiin oo saliida qaada oo taagnaa Dubai Port isagana meeshiisa lagu ololiyay hal qof waa ka dhintay so far 24 saac la soo dhaafay Imaaraadka dhimasho iyo dhaawac labaduba waa jiraan Abu Dhabi iyo Dubai labadaba dhimasho iyo dhaawac labaduba waa jiraan Sacuudiga mar kale Prince Sultan xalay waa khalday Prince Salman baa Prince Sultan base isagana waxba la helay meeshaas waa sahansan tahay